gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka labada aqal gole baarlamaanka iyo dawlad iyo xukuumadda ciidamada saxaafadda shacabka kale intii kale ee ka soo qayb gashay soo dhaweynteeda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan maanta aad iyo aad qiimaha u leh waana ka mahadcelinayaa. waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa iyana annagoo inaan ku soo noqday dalka aniyo waftigaygii aan hogaaminayay isagoo nabad qaba oo jilaalku waa iska maxay tahay waa jilaal jimcoon runtii intaan ka warqabo. waxaan u tacsaynayaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ee reer Beledweyne iyo gobolada kaleba gedo oo kale sida la sheegay fatahaadaha masiibooyinka ku habsadeen. waxaan iyana u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo golayaashiisa iyo shacabkiisa aan maqlay in deeq iyo tacsiil loo diray wixii loo qaban karaya macquul ah oo aan qabo maxay tahay dawladdii ugu horeysay ama dadkii shacabkii ugu horeeyay baa reer Puntland waana yeeli jiray weligii. aad iyo aad baan maxay tahay runtii ugu mahadcelinayaa. waxaan kale oo iyana ku faraxsanahay oo u mahadcelinayaa ciidamada xeryaha la furay oo ay ugu horeyso Xorgoble. waa runtii waa arrin aad iyo aad horumar weyn weeye waana himilooyinkii la tiigsanayay kuwii ugu horeeyay. waxaanu annagu sidaad ka warqabtaan wafti aan hogaaminaya waxay ku baxeen safar ka dhashay maalgelintii halka lagu qabtay oo aanu u aadnay dalka Turkiga. waxa si fiican baa nalagu soo dhaweeyay maalgelinta iyo shirkaasina si fiican bay u dhacday. dabcan warbixinta waxay siiyay wasiiradii ka qayb galay oo naga soo noqday warkooda waad haysaan. laakiin waxa uu ugu muhiimsanaa labada shirba iyadoo Puntland cidii aan aqoonay ay ku baratay iyo maxay tahay ganacsi wixii ganacsata ay ku barteen. halka waxaanu kula kulnay dad badan oo dawladdu Turkiga ay ka mid yihiin ganacsato ay ka mid tahay. aad iyo aad baanu maxay tahay hawlihii aan isugu afkaranay aanu ka wada hadalnay. safarkaygu safar shaqo iyo mid khaasaba ayuu isugu jiray. horaanu uga maray ilaa Yurubtaasaanu soo maray. community-gii jaalidihii dhulkaa joogay waanu la kulannay. aad iyo aad bay noo soo dhaweyn salaana wadinka sidnaa qiimo leh oo runtii aad loogu yididiilanayo Puntland dawladdeeda iyo shacabkeedaba runtii horumarka ka socda furfuritaanka businesska ka socda. fariimaanu idinka sidnaa wixii waraya intaa ka dambeeyay haddii la yidhi dib baynu isaga warsan doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka kan maanta shacabka iyo dawladda iyo saxaafadda iyo maanta aad isugu yimi halkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.